ninkan ayaa si lama filaan ah u soo toosay wuxuuna arkay in sariirtiisa ay biyo ku dhex jirto. argagax awgii ayuu si degdeg ah u daaray nalka waxaana la yaab ku noqotay in qolkii jiifka oo dhan ay biyo ka buuxaan. biyaha ayaa si xawli ah u soo kordhayay. haddii xaaladdu sidan ku sii socoto qolka oo dhan ayaa daqiiqada gudahood biyuhu wada qarqoomayaan. mid ka mid ah dadkii meesha ku jiray oo caqli badan ayaa ku qayliyey in suuliyada laga neefsan karo. isla markiiba biyuhu waxay gaareen saqafka qolka. qof walba wuxuu u degdegay dhanka suuliyada si ay u neefsadaan. hal nin oo xooggan ayaa isku dayay inuu furo albaabka laakiin cadaadiska biyaha awgii wuu awoodi waayey. intii kale waxay gaareen suuliyada waxayna si degdeg ah u fureen tuubada qubayska. kadibna waxay geliyeen gudaha suuliga si ay uga helaan hawo ay ku neefsadaan. laakiin ninkii ahaa geesiga sheekada ma aadin dhanka suuliyada. wuxuu si toos ah ugu dabaashay muraayad weyn oo qolka ku taalay. wuxuu qabtay bir hoos tiilay si uu isku xajiyo. kadibna wuxuu bilaabay inuu feedh xooggan ku garaaco muraayada si uu u jabiyo. waxa uu samaynayay oo dhan waxaa daawanayay tababaraha oo ka dambeeyey muraayada. ugu dambayn feedh culus oo uu ku dhuftay muraayadii way jabtay. biyihii ayaa si xoog leh dibadda ugu soo butaacay iyagoo qof walba soo saaray. goobtu waxay noqotay mid fowda ah laakiin tababaraha aad ayuu uga niyad jabay falkooda. waxa uu sheegay in inkastoo ay badbaadeen haddana aysan lahayn wada shaqayn kooxeed sababtoo ah markii ay suuliyada ka neefsanayeen waxay iska indha tireen gabadh saaxiibkood ahayd oo daciif ahayd taasoo keentay inay biyihii ku dhex dhimato. dhammaantood way naxeen markii ay ogaadeen in tababarku ahaa mid dhab ah. laakiin intaanay neefsan tababaruhu wuxuu u diyaariyey imtixaankii labaad kaas oo ahaa inay ka soo boodaan diyaarad joog sare leh. in diyaarad laga soo boodo waxay u ahayd wax fudud laakiin tababaraha ayaa caqabad ku soo kordhiyey. wuxuu u sheegay in mid ka mid ah kooxda uusan wadan barakute. arrintan ayaa cabsi weyn ku abuurtay qof walba. mid ka mid ah oo fulay ahaa ayaa si degdeg ah u furtay baarashuudkiisii isagoo aan wakhtigii la gaarin. shantii kale waxay weli si xawli ah hawada ugu soo socdeen. geesigii sheekada ayaa soo jeediyey inay gacmaha isqabsadaan oo ay sameeyaan goobo si ay u badbaadiyaan qofka aan baarashuudka wadan. si kastaba ha ahaatee intii ay isku dayayeen inay isqabsadaan waxaa dhacay shil lama filaan ah. nasiib wanaag geesiga ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee falceliya. wuxuu si degdeg ah u caawiyey gabadhii saaxiibtiis ahayd inay furato baarashuudkeeda isagoo bowdadeeda si adag u qabsaday waxayna si nabad ah ku soo degeen dhulka. imtixaankan waxaa ku haray 3 qof laakiin geesiga sheekada ayaa weli ka xanaaqsanaa sababta isaga looga dhigay qofka aan baarashuudka wadan. tababarihii ayaa si hoose ugu sheegay inuu istajiyo. kadibna wuxuu furay boorsadii dhabarka ugu xirnayd waxaana ka soo baxay baarashuud. tani waxay ahayd imtixaan kale oo lagu eegayay kalsoonidooda. imtixaanaadkii waxay gaareen heer xasaasi ah. 3dii qof ee soo hartay waxaa la siiyey howlgal cusub inay tagaan xaflad qarsoodi ah oo ka dhacaysa London ayna soo xodxotaan gabadh sawirkeeda la tusay. howlgalkan wuxuu u ahaa mid fudud geesiga laakiin isla markii uu bilaabmay ayuu shil dhacay. cabitaankooda ayaa si qarsoodi ah loogu daray daroogo wayna miir beeleen. markii uu soo miiraabay wuxuu is arkay isagoo ku xiran birta tareenna uu si xawli ah ugu soo socdo. nin madow xiran ayaa weydiiyey su'aalo ku saabsan ururka Kingsman iyo qofka la yiraahdo Harry Hart. inkasta oo uu naftiisa halis ku jirtay wuu diiday inuu wax macluumaad ah bixiyo. ninkii ayaa ugu hanjabay in saaxiibadiis la dilay markii ay bixin waayeen jawaabaha. ugu dambayn tareenkii ayaa si nabad ah u dulmaray maadaama ay ahayd imtixaan kale oo lagu tijaabinayay daacadnimadiisa. macalinkiisii Harry ayaa soo baxay isagoo ku ammaanay sida uu u adkaystay. inkastoo uu imtixaan adag ka soo gudbay haddana tababarku ma dhammaan. Harry aad ayuu ugu qanacsanaa sida uu u dhaqmay wuxuuna geeyey xarun qarsoodi ah si loogu sameeyo dhar u gaar ah. imtixaankii ugu dambeeyey madaxii ururka ayaa amray inuu toogto eeygiisa si uu u muujiyo daacadnimadiisa. isagoo aan raali ka ahayn ayuu qorigii qaatay. markii uu eegay eeygii oo si naxariis leh u fiirinaya wuu awoodi waayey inuu toogto. taa beddelkeeda wuxuu qorigii ku jeediyey madaxii ururka. isla markaas waxaa la maqlay dhawaqa rasaas ka timid qolka kale taasoo la micno ah in gabadhii la tartamaysay ay fulisay amarkii. waxaa loo sheegay inuu ku fashilmay imtixaankii maadaama qorigu ahaa rasaas la'aan. Harry ayaa u yimid si uu ugu canaanto fashilkiisa laakiin waxaa si degdeg ah u soo gaaray howlgal culus oo ahaa in la baaro koox argagixiso ah oo ku sugan kaniisad. markii uu Harry gaaray kaniisadii wuxuu ogaaday inay ahayd dabin. dadkii oo dhan waxay si lama filaan ah isugu bedeleen bahalo rabshad wada iyagoo isaga ku soo weeraray. xitaa Harry laftiisa ayaa lumiyey xakamaynta. dhacdadan oo dhan waxaa daawanayay ardaydiisii oo ku xiran shaashad. kaniisadii waxay isku bedeshay goob dagaal oo naxdin leh. daqiiqada yar gudahood dadkii kaniisadda ku jiray oo dhan waa la laayay. markii uu Harry ka soo baxay wuxuu la kulmay maskaxdii ka dambeysay falkan. ninkan ayaa qirtay inuusan isxakamayn karin oo uu laayay dadkii oo dhan. wuxuu sheegay in tirada dadka adduunka ay aad u badatay loona baahan yahay in la nadiifiyo. wuxuu ikhtiraacay sim kaar gaar ah oo dadka ka dhigaya kuwa rabshad wada marka la kiciyo si ay isu laayaan. keliya dadka qaba kaarka gaarka ah ee maskaxda la geliyo ayaa badbaadaya. wuxuu sim kaaradan si bilaash ah ugu qaybiyey adduunka oo dhan isagoo sidoo kale la heshiiyey madaxda iyo dadka ugu taajirsan adduunka. markii uu hadalkii dhameeyey wuxuu si naxariis darro ah u toogtay Harry. ardaydii oo dhan way naxeen mana rumaysan karin geerida macalinkooda. geesigii sheekada ayaa si toos ah ugu laabtay xaruntii si uu uga arguto Harry laakiin wuxuu la kulmay layaab kale markii uu ogaaday in madaxii ururka uu isna qayb ka ahaa shirqoolka. kadib markii uu qoortiisa ka arkay nabartii kaarka si caqli badan ayuu ula sheekaystay isagoo si qarsoodi ah ugu bedelay koobkii sunta ahaa ee loo diyaariyey. madaxii ayaa cabbay wuxuuna dhintay isagoo qiraya falkiisa. hadda geesigii sheekada tababarihii iyo gabadhii saaxiibtiis ahayd ayaa ahaa dadka keliya ee badbaadin karay adduunka. waxay bilaabeen qorshe degdeg ah. gabadhii waxay qaaday hawsha ah inay hawada sare u duusho oo ay burburiso dayax gacmeedka fidinaya signaalka halka geesiga iyo tababaruhu ay weerareen xarunta cadowga. howlgalku si wanaagsan ayuu ku bilowday laakiin gabadhii buufintii ay wadatay ayaa qaraxday iyadoo halis gelisay howlgalka. dhinaca kale geesigii waxaa khiyaameeyey mid ka mid ah ardaydii hore ee tababarka kaasoo kashifay qorshahooda. nasiib wanaag gabadhii waxay ku guulaysatay inay burburiso dayax gacmeedka laakiin cadowgu wuxuu lahaa qorshe labaad. geesigii wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo maskaxdiisa. wuxuu xasuustay in kaararka maskaxda la geliyey ay lahaayeen awood isqarxin ah. tababarihii ayaa si degdeg ah u jabsaday nidaamka cadowga wuxuuna kiciyey awooddii isqarxinta ee kaararka. isla markiiba dhammaan madaxdii iyo askartii cadowga ee xarunta ku sugnaa
madaxoodu waxay u qarxeen sida rashka oo kale taasoo abuurtay muuqaal cajiib ah. guushii kadib geesigii ayaa is arkay isagoo wajahaya caqabadii ugu dambaysay, gabadh lugo bir ah oo aad u halis badan. dagaal adag kadib geesigii wuxuu isticmaalay kabtiisii oo sun ku dahaadnayd wuxuuna kaga adkaaday gabadhii. ugu dambayn wuxuu si geesinimo leh u soo afjaray ninkii sharwadaha ahaa isagoo adduunka ka badbaadiyey masiibo weyn.